لله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والسبحان الله أكبر الله أكبر لله kumanaan muslimiin ah ee ku nool degmadani ceelbe ee gobolkani Sanaaga ayaa maanta istaadiyowga degmadani ceelbe ee gobolkani Sanaaga waxay ku soo tukadeen labada ragcadood ee salaatul ciid al-fidriga kadib markii ay soo shoomeen muddo 29 cisho ayay saaka istaadiyowgaasi ay ku soo tukadeen salaada kadib markii ay soo tukadeen ayaa waxay isu marxabeynayeen ciid mubaarak macal ciidayn iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxayna hawada umariyeen salaankal iyo laaba eheladoodii iyo qaraabadoodii markaasi ka fog kuwa haatan goob wada joogana waxay isgelinayeen kasha iyo laabta ayay isugu marxabeynayeen waana kuwan iyagoo markaasi eheladoodii iyo qaraabadoodii salaan hawada umarinaya والصلاة والسلام على رسول الله waxaan leeyahay كل عام وأنتم بالخير meel kastoo ay joogaan dadka muslimiinta waxaan leeyahay ciid saciid ciid mubaarak taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto waxaan leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ciideeda aynu ku gaarsiiyo barwaaqo bashbash iyo caafimaad qab Ilaahay aynu ku gaarsiiyo iyo amni maanta alxamdulillah waxaa la soo tukaday ciid al-fidrigi degmadan ceelbo alxamdulillah dadkii majority way soo tukadeen way jiraan dad haray oo iyagu bari tukanaya dhammaan waxaan leenahay dhammaantood ciid saciid ciid mubaarak marka alxamdulillah si fiican baa looga ciiday ummadoo dhan alxamdulillah 90% ummaddu way ciideen marka guud ahaan dalka Soomaaliya dhan waa laga ciiday waxaan anagu ku ciidinayna waxa weeyaan waa markay iclaamisay dawladda Puntland wasaaradda awqaafta iyo dawladda Soomaaliya sababtoo ah in la rahmaan rahiim marka hore aniga magacaygu waa Maxamed Ali waxaan salaamayaa dhammaan muslimiinta daafaha caalamka kala joogta waxaan leeyahay ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh waxaan leeyahay kullu caam wa antum bil khayr ciid wanaagsan ciid mubaarak hadda ciidda waxaan la qaybsanayaa dhammaan dadweynaha muslimiinta waxaan kale oo la qaybsanayaa ehelkayga iyo baa looga ciiday magaalada ceelbo iyo nawaaxigeeda dadka muslimiinta dhamaantood waxaan leenahay ciid wanaagsan ciid mubaarak kullu caam wa antum bil khayr halka waxaan ka salaamayaa dhammaan waalidayda ummadda muslimiinta ciidka wanaagsan ilaahay ummadda islaamka waxa magacaygu waa Maxamed Axmed Ibraahin waxa looga ciiday magaalada si aad iyo aad u qiimo badan waxa la isugu baxay banaanka ma sha Allah magaaladii dhamaan looma kala harin dhalinyaro waayeel rag dumar looma kala harin si aad iyo aad looga ciiday ma sha Allah waana u hambalyeynayna muslimiinta meel كل عام وانتم بخير دمان ummadda Soomaaliyeed soo waxay ciid wanaagsan waxaan ku ciiday degmada Lasco ceelbo maanta waxa weeyaan ciid aad ummadda u ciiday muslimiinta aad sugto gaar ahaan degmada Lasco ceelbo waxaan leeyahay ciid wanaagsan ummadda Soomaaliyeed meelkasta ay ku noolahay aad oo faajoowin oo joog wanaagsan oo habi ah asxaabtayda oo fadhiyan aad iyo aad waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed وسيدة فرحة لو عيدي maanta ceelba si weyn baa looga ciiday xogaa waxa weeyaan shacabku waxa weeyaan waxaad ka muuqanaysaa farxad aad u weyn waxa weeyaan ka dareemaysid barwaaqada iyo roobka iyo waxa weeyaan jawiga lagu jiray farxadda ciidul fitriga waxaan aad iyo aad ugu hambalyeeynaa dhammaan ummadda islaamka meel kasta joogaan adigana aad iyo aad ku salaam barakaatu ciid mubarak kul caam wa antum bikhair waxaan halkan hambalyo ciid uga dirayaa dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan madaxdeeda iyo shacabkeedaba hadda waxaan ku suganahay degmada ceelba gobolka Sanaag si fiican baa looga ciiday ma sha Allah waa aragtaan waa dareemi kartaan dadkii soo tukaday ciidii musalli ciid hadda joogteen runtii si fiican magaalada looga ciiday oo qurux badan oo u hambalyeynaya dhammaan shacabka الرحيم كل عام وأنتم بخير تمام مسلمين تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال عيد مبارك عيد مبارك مع المسلمين تبارك تجوعان خاصة الصومالي ده وجودهان كيف يعني عيد الصومالية
kunyaanka muslimiinta ee saaka ku ciiday degmadana ceelbe gobolkani sanaaga ayaa waxay ku soo ciideen jawi aada u qurxoon iyo meel qabow oo markaasi rayskii iyo raxmadda ilaahay ay jiifto waxayna ilaahay ugu mahadnaqeen raxmadda alle uu xaajan ku dhigtay deegaankani gobolkani sanaag waa axmed cabdilaahi ciise axmed cashuur telefishinka caalamiga Soomaali News TV degmada ceelbo ee gobolka sanaag.